ganacsatada iyo mulkiilayaasha suuqa labaad ee caasimadda Somaliland Hargeysa ee gobonimo ayaa albaabada u laabay goobihii ganacsiga iyo caafimaadka kaasoo ay ku sababeeyeen sicir bararka ku yimid lacagta Mareykanka ee dollarka kaasoo hoos u dhigay qiimaha lacagta Somaliland dadkaasi oo shaqada joojiyay isla markaana warbaahinta kula hadlay suuqa labaad ee gobonimo ee caasimadda Somaliland Hargeysa ayaa warbaahinta waxay u sheegeen qaab kala duwan oo ay sababeeyeen lacagta dollarka Mareykanku hana hadaladoodii kamid sidatan maanta dadkeenii danyarta ahaa waxa ma iibsan karayaan annagii wax iibinaynayna waxba kama iibin karayno shaygii aan 7,000 ka siin jiray maanta markaan idhaahdo 9,000 keen qofkii waxba igama iibsanayo tan maanta ka horta ma naarag dadka haloo ummadina ma noola dadka ma noola dawladuna waxay isweydiisaa u maalgash war dalkeena halku maray aan isku soo baxnay dadka soo gobonimo maanta waxa weeyaan sicir bararka dadka wada saameeyay qof walba danqay sida ma tahay wax shaqo ku jira abaaraha waa ogtiin dadkeena inay baranbarayaan bari iyo galbeedba waxa jira abaarihii suuqa dadka ay ganacsatada ah ee yaryar ah culumowdiinka cid waliba inay ka hadasho sicir bararka maanta dhacay ee maxaan ku dhahdaa wax aan goosan karayaaba aanay jirin iyaguna inay istacaajid sameeyaan baan jecelnahay waana ugu hambalyeynayna dawladnimadeeda waana ogollahay mas'uuliyadda maamulka waana ogollahay madaxweynaha waana salaamayna iyo marwada madaxweyne ku-xigeenka waana salaamayna iyo marwada waxaan mujtamaca suuqa gobonimo ayaanu nahay ee dumarka qudraleyda iyo bacadlaha oo dhan ina sixirka dollarka nalaga jabiyo oo dollarka kaashka Somaliland anagu soo saaraysa naga qabataan rabnaa 500 waa la daadiyay inay waa la daadiyay ku jiro waa la daadiyay laakiin lacagta ku tabcay waa la khasaariyay Somaliland kii hore ee geeriyootay ee Ibrahim Gaar u horeeyay lacagtooda sidii ay u soo sameeyeen looma hambalyeyn rag baa ku tabcay lacagta iyo dawladda iyo dal maciishadii dadkuna runtii waxay noqonaysaa dhibaato dadkii ku dhacaysa oo qofkii matalan shaygii inaga dhibta ayna haysta waxa weeyaan markii qofku uu doonayo inuu wax sare ama dollarku uu kaco maciishadiina way la kacaysaa hadhow talo markii dollarka hoos u dhacaana maciishadii kor bay sii noqonaysaa marka waxay noqonaysaa in dabaqada ay dadku samaysmaan marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in arrinka laga qabto wax in la xadido sarifka oo runtii qiimo macquul ah oo cid dadka aan dhibaato ku keenay in lagu celiyo runtii way noqonay nolosha cabashooyin fara badan baa jiro nolosha sida kalaba way adag tahay oo dadka Somaliland inta dabaqada samaysmay waxay baahantay arrinka in wax laga qabto laakiin arrinka maanta ugu weyn laga hadlayo waxa weeyaan in sicir bararka jira in wax laga qabto oo dawladdu inta gacanteeda wala timaado iyada dalka ka mas'uula aakhirayada la weydiinaya iyada loo dhiibtay xilkan iyada la xisaabtamaya waana marka dawladdu wax ka qabataa arrinkaas waa naga codsi waxaan doonayaa si degdeg ah wax looga qabto abaarna way jirtaa runtii laakiin maanta arrinka Umar Shafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Somaliland Hargeysa